الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. kuwiina dembiyada waaweyn iyo qaladaadka ka dhowrsanaya kusii dhacaya kuwo yaryar, rabbigiina naxariistiisa waa mid ballaadhan. waxaa xaqiiqo ah qofkii qur-aanka raaca inuusan dhumin, kan dhaqan ka dhigtana inuusan duloobin, ciddii weeshataana inaysan cudloobin. cabdullaahi ibnu cumar radiallahu can allah ka raali noqdee ayaa ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi, eebe dadka wuxuu ugu jecel yahay kuwa ugu anfac badan dadkooda. axaba annaasu ila allaahi anfacahum linnaas. ha noqon mid ka luma dariiqa sax ahaa ee wanaagsanaa, ha noqon mid dhaqankiisa uu xun yahay, ha noqon mid dulooba oo ilaahay subxaana wa tacaala ku caasiya. walaal, noqo mid anfaca dadkooda, dalkooda iyo diintooda faafiya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.